بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada qoysbile iyo casharkeennii xirfadda xulashada lamaanaha runtii waxaan soo yara fiirinay waxyaabaha shareecada iyo diintu ay noo sheegayso in gabdhaha lagu doorto ee nebigu noo sheegay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaan iyadana dul istaagi doonaa dhinaca dhaqanka ayaan rabnaa inaan dul istaagno dhinaca dhaqanka waad garanaysaa soomaalidu waa isku dhaqan inkastoo ay xoogaa meelahay kala degaan isku si aysan u dabaqin dhaqanka sidoo kale dhaqanka markaad eegtid guurka iyo xulashadu waxay ahaayeen waxyaabaha ummaddu ku taagan tahay waxyaabaha abuura in ay dadku isku xirmaan in la abuuro xiriir aan hore u jirin sidoo kale qoysku wuxuu ahaa saldhigga ay bulshadu aad iyo aad u ilaashadaan abuuritaankiisa marka inanku doonayo inuu guursado oo uu rabo in uu inan doonto dee sida hadda aan samayna lama samayn jirin hudheele lama tegi jirin waqti badan lama lumin jirin jalaato lamada cuni jirin maxaan ku idhahda ubaxa iyo ubaxyo iyo layskuma sawiri jirin laakiin macno kalaa jiray macnaha kaloo jira wuxuu ahaa iyada oo rabitaanka dhabtaa uu yahay in labada qof noloshooda qaataan ayuu si dhab ah u xulin jiray si dhab ah ayuu u xulin jiray sababa uu xulin jiray waxaa ka mid ahaa inuu horta ka raadiyo gabadha uu doonayo inta badan meel ka baxsan meesha uu degan yahay si uu u abuuro ilmihiisa ugu abuuro janal cusub oo dad kale oo xidida u abuuro abtiyaal cusub habaryaro cusub eedooyin cusub dad cusub inuu ilmihiisa haddii ilaahay siiyo uu ku abuuro macnaha ugu weynna waxa weeye in dadku markii ay guursanayaan ay si kala duwan deegaamo kala duwan ka guursadaan faa'iido badan baa ku jirta inkasta oo hadda dad noloshan casriga challenge badan ka yimid arrintaa oo ay sababtay ilbaxnimada iyo maxaan ku idhaahdaa isku dhacyada ku salaysan deegaamada iyo siyaasadaha laakiin awal dadku waa isdili jiray haddana waa isguursan jiray iyagoo isdilaya waa isdhici jiray haddana hablaha marna laguma xadgudbi jirin dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka iyo qiyamka waa la ilaashan jiray sida hadda loo fahmsan yahay ma ahayn marka inanku wuxuu aadi jiray reeruhu xulin jiray xulashadiisuna waxay ku salaysnayd waan baran doonaa 4 shay laakiin meesha uu wax ka doonanayo asal ahaan waxa sabab u ahaa in uu ka doonto meesha inta badan hadduu awoodi karo ka baxsan deegaankiisa tusaale waxaa kuugu filan sayid maxamed cabdilla xasan habluhu guursan jiray waxay ahaayeen hablo suldaamo boqorro ogaasyo iyo wax la mid ah wax sababaha ugu muhiimsan u guursanayeen waxay ahayd inuu ka helo alliance isbahaysi inuu ka helo xiriirtinimadaas inuu wax ku maalo iyaguna at least uga xishoodaan sala nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasas badan buu lahaa kulligood waxay ahaayeen dad kala duwan oo qabaa'ilaad kala duwan ummadaha markaad fiirsan nabadoonnadii hore caamka ahaa iyo akhyaartii hore kulligood markay guursanayeen guurkood waxay ku saliyn jireen mid u keeni kara xiriir bulsho oo ka duwan midka marka ay ku nool yihiin haddaba adigu qoyskaaga maxaad ku salaynaysaa waxaad ku salaynaysaa inaad yartaa waxaad ku salaynaysaa gabadha kugu dhegan waxaad ku salaynaysaa meel kaa fog macnaha maanta yaalla iyo kii shalay yaallay iyo kii darhad yaallay ee guurka runtii way kala bedelan yihiin dhibaatooyin badan oo dhacay darteed hadda aad baa la isugu soo dhowaadaa qofba qofku ka dhow yahu guursadaa laakiin haddii la wanaajiyana waa fiican iyo malab iyo barwaaqo haddii la xumeeyana waa cadaab sababtoo ah walaasha waa in adeertaa waa qoyskii adiga hiilka kaa rabtay oo adigu aad dhibaataynayso marka taasuna dhibaato kale ayay keenaysaa marka qoyska ninkaa wuxuu aadi jiray halkaas waxyaabaha uu ku xulan jiray oo uu ku doonan jiray waxaa ka mid a inuu dad dirsan jiray dadkaasoo ah dad uu ku kalsoon yahay oo oran jiray inan iisoo eega inan iisoo raadiya shuruudahaan waan la yaqaanay gabdhaha unbaa u soo baadin jiray reer hilba gabar baa u joogta gabar baa xagga joogta asagaa aadi jiray maanta social mediaha jiray isku furankan ma jirin habeenuu dhexi jiray si u soo arko u soo kulmo xogteeda u raadiyo habeenuu dhexi jiray sidaa darteed
soomaalida dhaqankeedii halkaas ayay ku ilaashan jireen waxayna ahayd wax aada muhiim u ah sababtuna waxa weeye guurkaasu wuxuu ahaa mid aan dhammaanayn in ilaahay wax kale u keena maahay intooda badan 99% wuxuu ahaa guur waara because marka hore ayaa laga fekeri jiray marka hore ayaa la qiimeyn jiray marka hore ayaa taxadar lagu geli jiray marka hore laga fiirsan jiray asaguna inta badan wuu guuleysan jiray waana sii wadaynaa insha allahu tacaala sababaha lagu doonan jiray